السلام عليكم صاحب يال kusoo dhawaada kanaalkeeni alnaqaaya media YouTube iyo Facebook page oo aad uga barateen warar sports oo xaqiiqda ku saleysan maroobana ku dadaala inuu idin soo gudbiyo wararkii ugu dambeeyay ee sportiska waxa la idinka doonaya kaliya waa inaad ku xirnaataan oo aadan seegina wararka subscribe like share iyo comments kana waa dhankiina haddana aan u guda galno barnaamijkeena oo caawa ku saabsan tababaraha Chelsea oo tamashleenaya ayaa faar soo qabtay ninka kamaba qasna baashaal ayuu ku jiraa marka aan gudaha u galno sheekada tababaraha kooxda Chelsea Thomas Tuchel ayaa lagu arkay fasaxiisa Sardinia isaga iyo saaxiibtiisa cusub ee Brazil u dhalatay maalmo kadib markii uu furay xaaskiisii ay 13 sano isqabeen sida laga soo xigtay mail online tababaraha Jarmalka ayaa kula sugnaa Sardinia saaxiibtiisa cusub ee Brazil Natalia Marquez isagoo ku raaxaysanaya fasaxiisa ka hor inta uusan dib u bilaabin xilli ciyaareedka cusub 48 jirkan ayaa qabay wariye Cici Tuchel muddo 13 sano garsooraha maxkamadda sare ee London ayaa u ogolaaday inuu furo toddobaadkii hore madaxa Blues ayaa la arkay isaga iyo Mrs Marquez oo 35 jir ah oo ay saarnaayeen dooni mareysay jasiiradda Mediterranean-ka waxaana la arkay iyaga oo gacmaha is haysta oo qoslaya xilli ay ku dabaalanayeen badda waxa uu safarkan la qaatay milkiilaha ganacsiga waqti nasasho yar oo u dhaxaysay safarkii ay kooxdiisa ku mareysay Mareykanka oo axadii la soo gabagabeeyay iyo kulan saaxiibtinimo oo ay caawadan la yeelanayaan kooxda reer Talyaani ee Udinese oo waqtigan aan idin tibanayo warka ay socoto ciyaarta iyadoo qaybta labaad ay hadda bilaabanayso ciyaartana waxay maraysaa 2 oo Chelsea lah iyo 1 gool oo Udinese leh daqiiqadii 20aad ayaa waxa goolka u dhaliyay Chelsea N'Golo Kante halka daqiiqadii 37aadna uu goolka labaad u dhaliyay Raheem Sterling goolka Udinese waxa daqiiqadii 42aad u dhaliyay Gerard Deulofeu ciyaartana hadda waxay sii maraysaa gabagabo oo waxay ku taagan tahay daqiiqadii 85aad wixii ku soo kordhana inta si duumayno wararkan ay idin soo tibanayo ayaan idinku soo gudbin doonaa labadan qof oo labadooduba dhalay laba gabdhood ayaa degan guri fila ah oo qiimihiisu yahay 20,000 oo pound habeenkii sida ay qortay jariirada The Sun mid ka mid ah dadka qaada dalxiiska ayaa u sheegay wargeyska waxay u ekaayeen dad aad isu jecel Natalia ayaa gacanteeda ku wareejisay dhexdiisa qoortana soo qabatay si ay u dhunkato ama u baashiyeyso waxay aadeen dabaal waxay ku qaboobsadeen xeebta waxay ka qadeeyeen maqaayadda hoteelka waxayna u qaateen doon jasiiradda Cabrera maareeyihii hore ee Paris Saint-Germain iyo Borussia Dortmund ayaa waxaa xaakimka maxkamadda sare ee London Mr Justice Mostin u ogolaaday inuu furo xaaskiisa Arbacadii 20 July kadib markii uu arkay in aysan jirin qaab lagu badbaadin karo guurka Mr Tuchel waxay dalbatay furiin dhamaadkii bishii March iyadoo ku sababeysay kala duwanaansho aan la isku raacsaneyn iyadoo mid ka mid ah ilo wareedka Mail on Sunday u sheegay in ay isku dayeen in ay ka fogaadaan in la kala tago laakiin ugu dambeyntii ma aysan jirin wada kale waxay intaa ku dareen in ay ahayd mid aad looga xumaado oo hadda ay tahay in la hubiyo in gabdhahooda ay yihiin mudnaanta koowaad Mr Tuchel ayaa u soo guurtay Britain dabayaaqadii August 7 bilood kadib markii ninkeeda uu yimid UK kadib markii la siiyay shaqada Chelsea markii hore waxa uu degay hotel ku yaala xaafadda Cobham ee Surrey una dhow goobta tababarka kooxda tababaraha Chelsea ayaa la sheegay inuu mushaar ahaan u qaato 7 milyan oo gini sanadkii saaxiibayaal inta ku jirnay tebinta warka ciyaartii Udinese iyo Chelsea u dhaxaysay way soo gabagabowday waxayna ku soo gabagabowday 3-1 goolka saddexaad ee Chelsea ayaa waxa u dhaliyay daqiiqadii 9aad Mason Mount ciyaartiina waxay ku soo gabagabowday 3 oo Chelsea lah iyo 1 Udinese leh wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh